hal qof oo meeyda ayaa laga helay dooxa magaalada Gabiley kaasi oo uu soo qaaday daadka dooxaasi maraya habeenkii xalay ahaa ilaa hadda lama aqoonsan meydkani oo yaala isbitaalka guud ee magaalada Gabiley waxaana arintaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi xogayaha fulinta dawladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golahaasi hal qof oo meydkiisa laga soo helay dooxa Jiwaaji ilaahay subxaanahu wa ta'aala deeqdiis ay ka mid tahay raxmadda ay noo shubay inuu muddo raadeen raxmadda haddana nusqaanteeduna way la socotaa isbitaalka waxa la keenay nin dooxa Jiwaaji laga soo helay meydkiisa oo wali aan la aqoonsanin cidda uu yahay ninkaasi isaguna waxa weeyaan ninkaasi waa meyd waxaan u yahay isbitaalka waxaan joognaa dooxa laagta Jiwaaji oo soo qaaday nin meeyda oo halkan laga helay oo noo soo sheegeen dadka deegaanku markii ay saaka waa berigii dhulku iftiimay ee carruuru soo baxeen sidoo kale dooxa dhinaca waqooyi ka mara magaalada Gabiley ayaa qaaday gaari u lahaa barasaab ku xigeenka gobolka Gabiley kaasi oo ay saarnaayeen xubno kamid ah gudida abaaraha iyo mid kamid ah wariyaasha ka howlgala magaaladaasi hase ahaatee dadkii gaarigaasi saarnaa ayaa la badbaadiyay soo waxa uu daadkaasi qaaday gaarigii mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada oo arintaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen daadku qaaday xubno kamid ah gudida abaaraha heer gobol oo hawshii samafalkay marka hore wadeen u tagay deegaanka Buusay raashin ku soo qaybinayeen soo noqodkiina dooxa laag barako warmalaliyagiisa ka galay saad arkayseen shantoodii qofba waxay ku urureen raarka sare ee gaariga iyo awgood waxa qaaday dooxa la yiraahdo laag barako shan xubnood iyagoo ah gurmad shicib iyo dawladba aanu galay ilaahay mahad ka gaadho waan ka soo badbaadinay dadkii Mukhtaar Nuux Ibraahim Hon Cable TV gobolka Gabiley